Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا aragtida official markale iyo muuqaal cusub maanta waxaan idin barnaamijyada imtixaanaha inoo ahaa aad mar walba kala socotaan aragtida official page-ka YouTube-ka fadlan haddii aad ka heshay muuqaaladeena subscribe noo saar sidoo kale follow soo dhig page-keeni xalay waxaa ciyaarayeen Faransa iyo Morocco 12 bisha December 2022 haddaan dib u milicsano fariin u soo dhiibay wadaadka weyn magaciisa lagu magacaabo Sheekh Maxamuud Al Xasanaad ee u dhashay dalka Falastiin gaar ahaan Gaza. Sheekh Xasanaad ayaa waxa uu ka codsaday bulsho weyn reer Morocco in ay saliga nabiga ay ku ruuxaan ama ay ku gilgilaan garoonka dhexdiisii. Fariintiisina waxay u dhaceysay sida tan: waxaan rajaynayaa jamaahiirta Morocco ciyaarta ay la leeyihiin dalka Faransa ama kooxda Faransa in ay ku gilgilaan garoonka dhexdiisii saliga nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Sida arkaysaan waxaa hal mar isqabsaday tawxiidka iyagoo dhahaya laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah markaasi oo garoonka xaadir ku ahaa madaxweynaha Faransiiska kaasoo u yimid taageero inuu siiyo kooxdiisii oo u ciyaaraysay dalkiisa Faransa. sidaas darteedii sidaan ognahay wadanka Faransa wuxuu ka mid yahay ama dalka Faransiiska wuxuu ka mid yahay wadamada inta badan dacaayado ama fariimo dacaayado amba kartoono laga soo sameeyo oo lagu dacaayadeynayo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo dunida muslimiinta badankoodii ama guud ahaanba ay ka gilgishaan marka ayaga ay soo sameeyaan. sidaas darteedna aysan ka bixinin dawladda iyo shacabka reer Faransiis wax ku saabsan cudurdaar amba inay raaligelin ka bixiyaan. waxayna ka mid tahay dawladaha mayalka adag dhibaataynta ama aflagaadeynta diinteena islaamka iyo nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam inta badan masaajo aan wanaagsaneyn nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay ka bixin jireen ayaa maanta dhagahoodii waxaa si fiican loogu ruxay ama loogu jiljilay tawxiidka iyagoo dhahaya laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah. carabta guud ahaan gaar ahaan reer Morocco waxaan leeyahay nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waa weyneyseen haddana inta muslimiinta ay iimaan ku jiro waxaan rajaynayaa inay weyneeyaan saliga nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. fadlan haddii muuqaalkeena kusoo gaaray commentiga ka dhiibo rajaynayaa inaad ila daawataan muuqaalka saliga nabi Maxamed alayhi salaam lagu weyneynayay xalay garoonka weyn oo ka dhacay ciyaarta u dhaxaysay Faransa iyo Morocco. adigana waxaan rajaynayaa in aad nagu soo biirto saliga nabi Maxamed aad la weyneyso aad subscribe kana gaarsiisaan 5,000 aad baad u mahadsantihiin daawasho wacan.